waxaynu maanta si rasmi ah xariga uga jarnay maxadka sare daraasaadka amniga oo daraasaad ku sameyn doona arrimaha amniga guud ahaan hadday tahay amnul qawmi maxay tahay siyaasadda amniga ee qarankeena arrimaha amniga ee istaraatiijiga ee qaranka Soomaaliyeed ay u baahan in la daraso in khabaradu ka doodo inay daraasaad iyo study ku sameyso tala bixin ay dabadna ka soo jeediyaan lagu tababaro aqoonyahanka Soomaaliyeed ee xirfad-yaqaanka ah ee aqoonta u leh ama ha ka tirsanaadaan hay'adaha amniga ee laamaha amniga kala duwan ama ha ahaadaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo shahaadada digriga koowaad sita oo doonaya inay bartaan daraasaadka amniga wuxuu noqonayaa amniga inaga dal ahaan Soomaaliyeed ee qowmiga ah oo dhinacyo badan taabanaya ama xaq dhaqaale ama xaq nabadgelyo ama xaq amni oo guud ahaan ama xagga maxaa noqon kara national security interest waxaafka qalaad lagu yiraahdo danaha amni ee qowmiga ah umadeed maxay waxa kale oo lagu baran doonaa amniga gobolka mandaqadan geeska Afrika iyo sida inagu aynu isugu xidhannahay ama ugu xidhannahay ama amnigeena u saameynayso qaaradahan amnigeedu muxuu yahay iyo caalam ahaanba Soomaaliya iyo amniga qowmiga ay leedahay iyo Carbeed Afrika iyo dunida amniga xagga fikirka waxa looga baran karaa aragtidan xaq jirka ah daraasaad dhinaca amniga oo ku saabsan iyadana sidee loo sameyn karaa waxa iman kara amniga cudurradan faafaya qudhooda sidee bay amnigeena khatar ugu yeelan karaan maxaynu se uga kaashan karnaa marka arrimaha amniga iyo daraasaadkoodu waa ballaaran yihiin farxad weyn bay maanta markaa inoo tahay inaynu si rasmi ah u daahfurno in lagu odoroso in maskax Soomaaliyeed oo fikiraysa ay u fikirto dalkeena iyo amnigiisa sidaynu horumar uga gaari lahayn maanta dhibaatada ay haysataa waa mid amni koow caam ahaan labaadna mid amni oo ku salaysan amni xagga fikirka ah oo fikriga khaldan ee aragtida khaldan ee laga turjumada khaldan loo sameeyay islaamka arrimahaas oo dhan maanta in la odoroso la daraaseeyo si qoto dheer loo rogrogo dabeedna afkaar miradhala hay'adaha dawladda ee amniga ku shaqada leh ay u soo baxdo hay'adaha kale ee dhinaca waxbarashada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo iclaamka iyo guud ahaan loo helo marka horumar weyn inuu sameeynay weeye inaynu maanta marayno macahad sare inaynu daahfurno oo waxbarashadiisii bilaaba oo arrimaha amniga qowmiga amniga qaaradeed dhinacyada kale ee kala duwan ee uu galayo lagu odoroso dad khubaro ah soo saaro hay'adaheena amniguna ay la mid noqdaan haddana waa yihiin la jaan qaadaan dunida qaybaheeda kale aqoon ahaan xirfad ahaan iyo kartin ahaanba waxaan leeyahay hambalyo macadka waa hambalyeynaya manhajkiisu sida ay leegu warbixiyay waa dhameystiran yahay hadday tahay dhinaca wasaaradda waxbarashada fikir ahaan manhajku muxuu yahay iyo hadday tahay maxadka saraakiishiisa iyo mas'uuliyiintiisa kala duwanba marka waxaan leeyahay oo guuriyo hambalyaan leeyahay waan idinku hambalyeynayaa aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee shahaadooyinka koowaad iyo labaad iyo haysta ee danaynayaan ha ku soo dhiiradaan inay ka faa'iideystaan oo ay wax ka bartaan waa horumar iyo tallaabo dhinaca saxsan aynu u qaadnay oo dhinaca dib u dhiska Soomaaliya